السلام عليكم كولبا على باتا A B C D 1 2 3 وأنا وافرتون ما نصب أركت عصب كسر دو channel كيجا هذا كيش فيديو كان لايك يتابعوا رأي هدارتنا ديوتد كومنت كساخر أركت ساعة عمل هدارت سبسكرايب كلكسي ما أنت فيديو وحكساب سمع دعلما حواي إلا طري تد كان أنا مقع وبحصله شيء كذا آخرستا واكل جديا ساد أفهمين تنو كوسو آخريا هما بلاوتو قف كان كواد وحا بخينا حنان حترين فرتون وانكو سلامي اديق اي اصحابتاada kugu xiran ba waxa tahay gabar aan iska jecelahay oo mar walba videoyaasheeda daawado. Thank you very much. I love you too. magaca rabtid ii bixi aniga abaayo waxaan rabaa inaan kula wadaago sheeko i qabsatay. abaayo waxaan lahaa crush markaan iskuulka dhigan jiray wiil isku fasal aan ahayn ayaan jeclaan jiray balse asaga ma ogeyn inaan jeclahay. anna uma sheeganin jaceylkeyga markii aan iskuulka dhameynay waa la kala danaystay oo qof walba meel ayuu dunida ka galay oo jaamacad uu aaday. sanad kadib ayaa wiilkii wuxuu iga soo follow gareeyay social mediaha xiriir ayuuna ii soo bandhigtay. annana wiil aan jeclaa maadaama uu ahaa waan ka aqbalay xiriirka. abaayo xiriirkeena wuu iska fiicnaa inkastuu ahaa long distance relationship balse wiilkan hal dhib ayaan ku qabi jiray. wuxuu ahaa nimanka jecel inay gogosha ka hadlaan 9-ka. wiilka muddo dheer ayaan isla soconay weligeena wax kale igalama hadlin aan ahayn gogosha. anigana waan dhibsan jiray mar walbo. muddo markaan isla soconay ayaan dareemay waxaan aan sameynayo inay dambi tahay oona ninkan u sheegay runta oo dhahay gogosha aad ka hadlaysid mar walbo jooji. saas markaan ku dhahay kadib wuu iga yara gaabsaday oo sidii hore muu iigu ahayn. assalaamu calaykum baan isdhaafsan jirnay iyo see tahay bis. aniga waxaa ii caddaatay ninkan inuu i jecleen sababtoo ah wuxuu igu rabay hal wax markaan joojiyana wixii wuu isbedelay oo awal siduu faxfaxda u ahaan jiray uma ahayn. anna markaas intuu xiriirka dhammaanin waa iska aamusay. abaayo waxa aan sameeyay aniga ma ku qaldanahay mise waan ku saxsanahay. walaalay ka cayso jawaabtu xitaa waa saxsan tahay tan ma ku qaldanaa kartid because qof wuxuu ahaa 9-kii rabo inuu xumaan ka hadlo adigana waxaa tahay la jamad. well done, shout out to you. sababtoo taas waxaa kuu dhahay waxay tahay qof waxaa noqotay qaladkeedii fahantay dambigiina ka toobad keentay. irsaaqad fiicanaa helaysaa. man come and go badaas way weyn tahay mid kalaa kasoo dabanaysaa. just waxaa sameysaa tan 10 ku noqoto next time qof gogosha kaala hadlo usoo afjar haba sii suginba cause qofkii ku rabo wuxuu ku mashquulsan yahay maxaa maanta soo qabatay iyo maxaa jeceshahay inaa cuntay iyo noloshaada iga sheekay iyo maalintaada iga sheekay. ma jirayso qof ku mashquulayo waxaas. qof waxaas ku mashquulo waxaas lagu rabaa. maanta hadduu qof kaala hadlaayo 9-kii lacag qofkaas lacag rabaa inuu kugu soo raaco maaha meeqaad samaysaa hay maxaa halkaas maxaa kugu jiro ayuu taday ku jirto maanta dhan hadduu ku dhahayo qofku waa fahmaysaa wuxuu kaa rabo. soo adoo fahamsaneed yatageen rabidaa rabtaa wixii ugu dulqaadanaysay waa toobad keentay. well done, waa la saxsan tahay xumaanaada sameynin. shout out to you. good job my friend. good job. marka next time la is ilaali usoo afjar qofkii aaba kusoo dhahaba. qofka labaada aadaynaa. qofkaan waxaan u bixinayaa mahad. wuxuu yiri abaayo aniga mar kasta aas dhoo xiriir gal macquul ma ii ahaato wax kasta isku dayay. qofka markaan la hadlo oo isdhaho qofkaan soo jiidashuu leeyahay waa la sheekeysan kartaa. hal maalin isla wada hadlaynaa maalinta kale qofka telefoonka igama qabanayo ama wajigu ii bedelanaya. waxaan sameeya ma aqaano. ani nin rageeda ahay waxaan rabi lahaa xiriir inaan galo mustaqbal samaysto laakiin hadda waxaan dareemayaa cidlo waxaana ka baqayaa nolosheyda in aan cidlo ku dhamaysto oo guurba lii qorin. maxaan sameeyaa waqtigana wuu igu socdaa ila tali. waa haajiray anaa ku dhahay meeshaa joogtaa ka tagay fresh face ma fahamsana dadka kaartaa bartay. tusaale ahaan gabar waxaa tahay dharka isku dhadhajiso adig quruxdeeda ku faanto waxbaa ku weysay ama saqajaale aragtay waa isdaday ilaaha u dhawaanay dhac irsaaqad fiicanaa hele meelaa joogtaa dadka joogo misfahmowsiin waa lagu adkeynaya sida abooga camal diyaarada karaace you go Dubai
you go wadan kale you know jawiga soo bedelanay jawiga marka soo bedelato ama haja marka ku dhahay qasam ah wadan kale inaad tagto if you're in London you come from London waxa aadaysaa Birmingham marka aadid new fish in the sea tahay bad waa ku cusub tahay so waxa laga yaabaa in aan meeshaas irsaaqad ka hesho meesha markay kugu adkaato aan waxa aaminsanahay hadda hal haajiro guurka haduu adkaaday magaaladiina is the problem adi ma aha problemka ka taag fresh air qaado go away waas ku barbardhige dabeecado duwana arkay dad duwana arkay waji cusub tahay waa lagu soo dhaweynaa laakiin hadda fartuun camal tusaale ahaan London jooga ma dhawaya suuq malihin just in case London jooga I've been here for many years area waa laga yaqaanaa area la hada ku akaado dhimo ado ani wax rabo malaha ani wax rabo because qof kasto uu yaqaana wuxuu yaqaana inta joogo hada halkaas jiro ama you know dadku way la socdaan way yaqaana insan aad u yaqaana so waa ka fogaanay you just go to area laga aqoonin talada saas waaye is dhiirigeli labiso marka ku dhahayo waxa jirto dad la socdo fashionka oo maanta hadii gees la xirto gees xiranayo waxaas waa laga tagayaa waxa fiican ina adoo magaalada la socoto unique na ahaata ka duunaato dadkina waa la socotaa waa la jaan qaadaysaa laakiin wax yar oo cusub iyo milix ka duwan ina leedahay don't be a fashion person be a fashionista so tusaale ahaan dadka guud haday wada xiranayaan guudka xiranaa laakiin wax yar madow ku dara ama cadaan mi fahmusa stylekaaga wax yar duu dadku soo jiidasho si u lahaato dharka xirantaa hadda iyo saaw egtahay wax ka bedel dabeecadaada waxa ka bedelaysaa in aan noqoto qof wax raadiyo marka wax raadinayso waxa ma iimaanayaan gabdho badan waxa arka dhahaa ani guuraaraba guur ma iimaana kusba raadinaysa marka raadinayso waqti uu kugu dheeraana shaqada joogtid waa aadaysid kooxda mas'aamaal gaar kooxda maantaas way jiidnay so waxa yaala raadinin wixii lagu qoray saaqada lagu qoray ama jiifo ama soo jeed darashada ka soo galay laakiin adoo daalan kabar wax ku qoran isdaalinaysa iyo safar marwa aniga marka taladeeda waxay tahay sababta ku dhahay meel kale aad qof kale taa dareemay inaad tahay xiisaa ku soo digalayo magaalada ku cusub tahay waa isfurfuraysa waxa ku soo galaysa dhiirgelin waxa meeshan ka sameeysid qofku judge gareenayo malaha so it's good in la haajiro magaalooyin kala la tago tala saas waa meel kala tag fresh air soo qaado dad kala soo baro dabeecadaha dad kale taa kaaga sheekeeyaan aragtidaadana wax yar ka bedel dadka ka soo muuqo maxaa jiray there's a saying oo mala kala qurxoonay amal laakiin sidii la isku qurxiyaa lagu kala maaragtay fiican amal mama saasa jirta hada ma xasuusto baya gabar waxa jirayso dadkeeda iskaga dhex jirto laakiin say u labisanayso say u isku kala qaadayso hubka ka war dheer you know so hala dadaalo talada inta ku soo gabagabeynaya ani waxa ahay ma aragtay coach kama ciyaaro waa ogaa qof comment wuxuu soo qori doono oo ma adiga is xalisid aniga waa xalsanahay qasab ma aha ina aniga nolosheeda ogaatid laakiin coach kama ciyaaran kan coach meesha fadhiya laakiin ciyaartooyda experience uu leeyahay infaantay so comment ay soo qorna fartuunay ma adiga is xalisid waa gardartiin waa ogahay dabeecadiina aqaana mugtaa qof kastaba qofka daawado waa qof isku dabeecadihiin ma aaminsantiin horta ana waxa aaminsanahay dadka daawado inay dadkayga yihiin macnaha ani camal ay yihiin because hadii isku dabeecada ah ahayn isku si aan u fikirin ma lis daawo leeyahay nooho so walaal gang is me I am you are me so waxa ku fikiraysa waa aqaana ala meeshaan soo taagan tahay taladan ayday ku fiicnaan heeday ma qaato waa qaatay aniga player from the Himalayas novanti marka adiga get to my level has jafo 2024 waxa rabaa aroosay ina iga soo digtaan ilmo leeyo sameeyo energy igeliya wili ma arkin qof TikTok soo galo ama YouTube soo galo dhaho ani gabadheeda fartuuna u bixi because fartuun duweyta jeclahay ama qof iyiri kala oo xalwo horto ali invite kare dhowr mar arooskayga invite kare bahala badiyo inta ku soo gabagabeynaya I love you guys peace and love don't forget to like comment and subscribe